qarashdoon waan qasad dhaba waxa ka dhacay magaalada Gaalkacyo maasadan waxa uu tala galay macalinkayga oo macalin ii ahaa wax soo baray bay qisadan ku dhacday waa nin hadlaya bay ka hadlaysaa qisadu gabar bay ku socotaa wax dhacday nin ayaa waxay saaxiib ahaayeen gabadh marka waa aniga staadkayga gabadhii dabeetana waxa dhacday hal sano ay xiriir garanaysaa isjeclaayeen hal sano ay xiriir lahaayeen marka jacaylku isaga uu ku koobnaa oo gabadhu dhabka may ahayn qofku dumarna way iska ahaydo wax iska rabtay oo shoppingkaasi waxa lacagtaas bay ka rabtay laakiin isagu waxay ka ahayd wax dhaba lacagta uu bixinayana kulay wuxuu wax walba ugu hurayay nafu jecel yahay ahayd dabeetana waxa dhacday barigii dambe inantu wuxuu ka codsaday inay isguursadaan isagoo waliba og in lacagtaas uu siiyo ay dadka siiso haddana wuxuu ku qancay mar walba isku qancinayay waa iska dumar dabeeto markii as aroostiin bay waxa joojinaysaa may dhicino wixii may joojin waxa dhacday ayaantii dambe gabadhii markii uu soo bandhigo ku yiri waan ku aroosaya xiriirkeenu xilli buu gaaray garanaysaa xilli buu wax badan buu soo socday waa xilliga aanu ka mira dhalin lahayn marka wixii dhalinyaro la wada yahay inama kale oo iskoolka marka isla dhiganayeen ama ay saaxiib ahaayeen ay uga sheekaysay qisadan inay garanaysaa nin hebel ay saaxiib la tahay dabeetana qarashkaas ay ka rabto mooyaane xitaa qabiilkiisa aysan guursan oo isaga ay ka dhameynayso lacagtaas dabeeto wixii ba gabadh dhalinyaradii saaxiibadaha ayaa u sheegay ustaadka oo ku yiri heblaayo waqtiga bay ka dhimanaysaa mooyaane sidaas dhacday markii uu isagii u tago ku yiri aroosi waxba noo qorsheeyay isagoo ku lifaaqayo raba runta inuu ogaado maxaan ka yeelnaa gurigeena iyo jacaylkeena soo miradhal rabo intaas soo jiray markaa wuxuu ku jiri ma adoo qabiil hebel aniga garanaysaa isoo haweysanaya markaa qisada asaga iga sheekeeyay dabeetana maansadan baan ka sameeyay oo aan magac ugu daray qaxar jacayl iyo qarashdoon maansadu wax ku bilaabanaysaa sida tan axay qalbi ku xaniban qabiran awga xirxiran sunquudisay ee talow nafsiga qaabkeed u celin muddaan awga qarwaaye muddaan ku qubay amaan muddaan kugu iri qurxoon maankaygaad qaadato qalbiga adiga degee haddii dunidoo dhan qaali xumaan ku wada qiraan anaan ku quurin oo saxiixa samaan ku qori muddaan ku lahaa qurxoon si aan kugu qiro jacaylka qalbiga quful baan suree adigu furihiisa qaado dal iyo qaarad kale la aad muddaan ku lahaa qurxoon dunidu waa ayaan quree walaalaha quursan oo ka shaadaha iga qufulin aroosaan abid la qaban ayaan boqorsheynayo kal qorayay niyad jabine inanta qancibaan lahaa hayeeshee qiimo badan habeen qura kuma hurdeen inaad qarash doontahood qidmadda aan soo dirana rag kale aad ku qoodisaa waxaase ka qiiro badan anoo awgaa qabiran dhibiya qaxar kuu dulmaray inaadba iquursatood qabiilaad igu nacdood qayrkayaad ii dishaa wixii runa lama qarshee waxaan dhab u qeexayaa intii la isoo qatalay beerkayga la soo qalqalay mid ii qoranoo dhacdiyo qadarta rabbi bay ahayd wixii qaladoo dhacana duruus barashaan u qaatay naftayda aan quusanoo qofaan soo socon sugtaay intaad samir qaadataa qarniga kor u dhaafay oo qiyaasba lahayn xaqiiqe intaad dacar quudan layd qardhaas isku duubal maanta